Qaybtii koowaad ee sheekadii taxanaha ahayd ee filimka Modern Secretary oo ku saabsanaa Hillary Clinton waqtigii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka. Waxaan ku hakinay iyadoo madaxweynaha Mareykanka gurigeeda ugu tegay iyadoon wax xil ahayn. Wuxuu ka codsanayaa inay ka aqbasho inuu u magacaabo xilka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka isagoo ku qiimeynaya kartideeda. Halkii ayaa kasii ambaqaadayna qaybta labaad. Qaybta labaad waxay ka bilaabanaysaa sidan. Waa professor takhasuskiisu yahay diimaha, waa macallin ka dhigay jaamacadda George Washington madhabka Orthodox-ka, waana ninka qaba haweeneyda ah wasiiradda arrimaha dibadda Mareykanka. Subax aroor hore xaaskiisii carruurtiisa isagoo jikada ugu jira ayuu taleefankiisa soo dhacay. Markuu dhammaystay ayuu u sheegay xaaskiisa qofka uu la hadlayay inuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo Washington DC shir u jooga. Waxay la soo booday, waan ogahay inuu joogo, ma anigu ii ka weydiiyay. May wuxuu iga codsaday inaan wada quraacno. Cabbaar markii quraacda lagu dul sheekaysanayay ayuu wuxuu ku yidhi, waan ogahay inaad tahay macallin ku fiican diimaha, falsafadaha iyo taariikhda. Waxaan ogahay inaad George Washington hadda ka dhigto maadadaas. Gabadhayda ayaa ka mid ah ardaydaada. Maadada aad dhigto ayaa ku adag gabadhayda, waxayna keentaa C. Harvard University inay ku biirto ayay rabtaa. Suurtagalna maahan inay hesho Harvard University haddii mar kale C keento. Sidaas darteed waxaan kaa rabaa inaad siiso A. Wuxuu yidhi, kan professor diimeed ahaan, kan macallin ahaan iyo kan aab ahaan, damiirkayga iyo shaqadeydaba way ku adag tahay arrintaas, ayuu ugu jawaabay. Laakiin xaaskayga waa wasiiradda arrimaha dibadda. Culayska ugu badan waxay kala kulantaa Bariga Dhexe. Cidda ay isku haystaan waa Ruushka. Aniga ayay la yaalaan dhammaan go'aamada Ruushka. Wuxuu ugu jawaabay, haddii damiir ahaan ay kugu adag tahay xaaskaaga, arrintu way ku adkaan doontaa bal ka fikir, ayuu kula dardaarmay. Bakistan ayaa qabatay nin Mareykanka u dhashay oo u shaqeeya hay'adda CIA-da, horena dalka Mali isla CIA-da uga soo shaqayn jiray. Bakistan ninkan waxay ku eedeynaysaa inuu sirdoon Mareykan yahay. Dil ayay ku xukumaysaa. Waa run oo ninku wuxuu hayaa xogo badan oo ay wasaaradda arrimaha dibaddu ka leedahay wadamada dagaalada ka socdaan. Sidaas darteed, wasaaradda arrimaha dibaddu waa inay keentaa xal diblomaasiyadeed oo ninkaas dilka looga badbaadin karo iyadoo la lumin xulafaysiga Bakistan ee Mareykanka. Kooxda xafiiskeeda ka shaqeynaysa ayaa abaabulaysa, waxayna ka codsanaysaa inay keenaan wax degdeg ah. Bakistan aad ugu baahan tahay, Mareykankana aan culays ku ahayn. Ninkaasna lagu soo bedelan karo Bakistan. Wiil ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda aadna wasiiraddu ay u jeceshahay ayaa soo jeediyay inuu jiro hub ay Bakistan aad u raadinayso, Mareykankana ay dhowr mar oo hore weydiisteen. Wasiiradda ayaa ku celisay, sababtu maxay tahay? Wiil kale ayaa ugu jawaabay, sababtoo ah Hindiya ayaa haysata, Bakistanna walwal ayay ku qabtaa hub Hindiya haysato inaysan haysan. Labadooda waa cadow, waana daris. Wasiiradda ayaa su'aal kale daba dhigtay oo ah, yaa laga heli karaa hubkaas oo aan Mareykanka ahayn? Mareykanka kadib waxaa haysta Ruushka, Shiinaha iyo Indiya, ayay ugu jawaabeen shaqaaluhu. Shiinaha hub ma weydiisan karno, Indiyana hub Bakistan la siinayo kuma siinayso. Sidaas darteed, xalka kaliya ee noo furan waa Ruushka. Wasiiradda ayaa la hadlaysa wasiirka dhigeeda ah ee Ruushka, isna isagoo oo isdhibin ayuu ku leeyahay, ninkaagu arrinkii aan ka wada hadlaynay ha fududeeyo. Kadib Bakistan hubkeeda way haysataa, muwaadinkaagana waad badbaadin. Ninkeeda ayay arrinkii la wadaagaysaa. Wuxuu ku doodayaa, ma damiirkayga ayaad u shaqaynaysaa, ma ardaydeeda kale ayaan xuquuqdooda duusiinayaa, ma shaqadeeda ayaa ku ciyaaraysaa taada darteed, mise shaqadaada ayaa ka fiican tayda? Dood badan iyo su'aalo damiir ahaan sax ah kadib, waxay Marwo ninkeeda tusinaysaa in naf iyo xoog iyo sharaf dalba badbaadinayso, muwaadin Mareykan ahna hawshu taagan tahay. Waxay kaloo tusinaysaa in markan Mareykan, Ruushka iyo Bakistan qadiyaddu taagan tahay, in arrintu ka weyn tahay darajo imtixaan oo gabar la siinayo. Tan ugu muhiimsanna ay tahay in guul diblomaasiyadeed ay gaarayso oo ka timid qalinka ninkeeda, iyadoona dalkeeda wax ka lumin. Wuuna ka aqbalay. Waxay kaloo dareensiinaysaa in marmarka qaar wax qalad ah la sameeyo, iyadoo ujeedadu tahay in meel kale wax looga soxo.
Intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena caawa.